maanta ayuu soo gaaray laguna soo dhaweeyay gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama ugaaska beelaha Gadabuursi ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi isagoo shalay toole soo gaaray Sheedar iyo degmada Awbare waxaana uu maanta si toos ah uga soo anbabaxay degmada Awbare ee ismaamul goboleedka Soomaalida ayadoo dhamaanba shacabka reer Boorama kaga hortageen soo dhaweynta ugaas Cabdirashiid xadka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya halkaasna ay kula wareegan soo dhaweynta ugaaska shacabka reer Boorama ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi oo ah ugaaskii 19aad ee beesha Gadabuursi ayaa dhamaan shacabka ay u helanayeen soo dhaweyntiisa si ay u arkaan ugaaska oo in muddo ahba ay ugu dambeysay in ay arkaan ugaas noocan oo kale soo dhaweynta ugaas Cabdirashiid ayaa shacabku si diiran u soo dhaweeyeen ayadoo dhamaanba shacabku ay kaga hortageen gaadiidka noocyadiisa kala duwan soo dhaweynta ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ayaa noqotay soo dhaweyntii ugu ballaadhnayd kuna noqotay shacabka reer Boorama bar taariikhiya sidoo kale waxa soo dhaweynta aad ugu qayb qaatay dumarka dhalinyarada caruurta oo ku soo dhaweynaya caleemo qoyan kuna dhawaaqayo erayo ah soo dhawo ugaas inta kadib waxa geeska kale lagu soo dhaweeyay laguna sugayay garoonka diyaaradda ugaaska oo halkaas soo gaaray waxaana xafladda soo dhaweynta ka soo qayb galay wasiiro mas'uuliyiin sarsare salaadiin odayaal dhaqameedyo culimada diin iyo dhamaanba qaybaha bulshada ugu horeyn waxa xafladda soo dhaweynta ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi ka hadlay sheekul beledka magaalada Boorama Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar
waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliland oo ka soo qayb gashay xafladan yar iyo weynba suldaano boqorro madaxda dawladda wasiirada dhammaan shacab weynaha reer Awdal salaan qaali ayaan soo jeedinayaa muddo badan ayaan ilaahay mahadii waan isku soo noqonay minka in aan shacab weynaha lagu shaqeyno ayaan ilaahay ka baryaynaa waxaan ilaahay ka baryayaa in ummadeenu isku mid muwaafaqo iyo midnimo ay ka shaqeyso ilaahayna dhulkeena waa dhul xora oo maanta nabadgelyadu aad u sareyso marka dawladda iyo shacab weynaha wada shaqeeyaan ayaan ilaahay ka baryayaa muwaadin kasta in xaqiisa la ilaaliyo ayaan ilaahay ugu rajeynayaa horumar iyo barwaaqo ayaan ilaahay ugu baryayaa qofka xaqa inuu garto ayaa muhiima oo xaqa dadka ku taagan la xaq dooro inagu dhaqan aynu lahayn soo jireen ahaa bariyii hore haddaan taariikhdii hore soo qaadano awowgay waasdoodii waxaa xidhay ingiriisku ahaa marka 6 sannadood bay kabraan ku xidheen